gabdhahani waxa ay joogeen meel kaniisad ah. Midani waxa ay doonaysay in fiideo laga duubo, laakiinse saaxiibteeda waxaa ka muuqday walwal aad u badan. laakiinse midda kaleeto waxay ku madax adeegtay inay fiideo ka duubato halkaani. waxay tiri waxaan gargaraacayaa 3 jeer albaabka, waxna ma dhacaayo. laakiin markii saddexaad markii ay gargaraaci rabtay waxaa ka celisay saaxiibteeda. waxay ku tiri laga yaabaa inay meeshan dhibaato nooga timaado, fadlan naga daa. laakiinse saaxiibteeda waa ay ku madax adeegtay, waxa ayna gargaraacday 3 jeer. kadibna waa ay tiri fiiri waxba ma dhicin. meeshii markii ay ka soo tageen kadib waxay tiri mar kaleeta fiideo iga duub. laakiinse saaxiibteeda waxay moobilkii ka dhex aragtay in gadaasheeda laga soo socdo. waxa ay tiri gadaashaada fiiri, qof ayaa soo socdo. laakiinse waxba ma aysan arkaynin iyada. waxa ay ku lahayd gadaashaada fiiri, waa la soo socdaa. laakiinse gadaal markii ay fiirisay waxba ma aysan arkaynin, ilaa ay ugu dambeyntii laga ciijiyey. waxay indhaheeda ku arkaysay saaxiibteeda horteeda lagu ciinjinayo, waxna waa ay u qaban weysay. kadib waxa ay soo fiirisay dhanka iyo kaamirada iyadoo dhool cadaynaysa weliba islaantii. waxa ayna aaday dhanka iyo kaniisadii, ayadana waxa ay ka fiirsanaysay taleefonka. laakiinse gabadhaani waxay ahayd gabar ku qoran haweenkii in ay ka shaqayso shaleemada, weliba qaybta nadaafadda ah. haweenkan haweenada kale waa ay ka duwaneed. waxa ay shanqar ay ka maqlaysay kuraasta dhexdooda. waa ay u dhawaaqday yaa meesha ku jira ayay dhahday. markii ay meeshii u dhowaatay waxay aragtay in ay ahaayeen carruur ay ayadu ku ciyaarayaan. carruurtii oo cararaysa waxaa ka hor imaaday nin aad u dheer. kadibna waa ay baqeen, meeshii ayayba ka carareen. gabadhii iyadoo sideeda shaqadii u wadata waxaa hal mar gadaasheeda soo istaagtay gabar ka mid shaqaalaha. waxa ayna wada sheekaysteen xoogoo. markii ay soo dhammaysatay nadaafadeeda waxa ay ka maqashay qolalka qol ka mid ah oo la daaray tiifigii weynaa ee shaleemada ahaa. markii ay gudaha u soo gashay cidna ma aysan joogin. kadibna waxa ay tiri qof maamiya meeshan jooga. waxay shanqar ka maqashay qaybta sare. markii ay fiirisan cidna ma aysan arkin. waxay u soo baxday inay hubiso dhankaasi. markii ay cid ay ka weysay waa ay iska soo laabatay. waxa ayna soo aaday dhanka iyo bannaanka. markii ay imaaday qaybta maqaayadda ee daangada lagu duubo waxay aragtay boorso oo miiska saaran, laakiinse qofkii lahaa meesha ma uusan joogin. waxa ay la yaabaneed cidda meeshaan dhigtay. cabbaare waxa ay ku hadlaysay taleefon. kadib waxa ay doonatay in ay soo gurato daango. waxa ayna aaday dhanka iyo daangada. iyadoo sidii daangadii u koranaysa marka labaad waxay ka dhex aragtay weji bani'aadan oo ku hoos jiro daangada. ibna zaa'id ah ayay u naxday, waxayna u sikaday gadaal. laakiinse nasiib xumo gadaasheeda waxaa taagnaa qofkii dilay gabadhii. gabadhaani waxa ay cunaysay cunto ay deliifriga ay ka dalbatay, laakiinse iyadoo cuntadii ay wado waxa ay ka dhex heshay waraaqad. waxaana ku qornayd in la dhahay waxaad dhimanaysaa 4 saac. iyadiina waxa ay fiirsay taleefonkii, saacaddana waxay ahayd 9kii habeenimo. xoogoo waa ay shakisay, cabsi yarna waa ay soo gashay. waxay fiirisay hareeraha, kadibna iyadii ayaa isku qosashay. kadibna sawir ayay ka qaaday waraaqadii, waxa ayna dhigtay baraheeda bulshada. waxay iska aruurisay alaabtii, waxa ayna gashay dhanka iyo jikada. laakiinse waxaa la dheereeyey qolka kululeysadiisa. iyadoo tiifigeeda daawanaysa waxa ay dareentay kuleel.
waa ayna dhiradaysay. Waxa ay la yaabtay kuleelkan waxa uu yahay. Kadibna waxa ay u kacday dhanka iyo kulaysada qolka. Waxa ay la yaabtay cidda dheeraysay. Kadibna waxa ay soo baxsatay muraaxad. Waxa ayna ku xiriirsatay korontada. Markii ay ku xiriirsatay korontadii, iyada ma aysan ogeyn in ay fiilada dhaawac ay ku taalo. Kadib waxaa biyihii soo furay cid aanan la garanaynin. Biyihii waxa ay soo gaareen dhulkii oo dhan. Iyadan laakiinse ma aysan ogeyn. Ilaa ay biyihii iyo korontadii isqabsadeen. Iyada waxaa lugta u taashay dhulka, laakiin nasiib wanaag kor ayay u soo qaadatay. Waxa ayna sii fadhisay fadhigeeda. Waxa ay aragtay saacaddii in ay tahay 10kii habeenimo, ayna tahay in ay seexato. Kadib markii lugaheeda ay dhulka gaareen, waxaa ku dhegtay korontadii ilaa ay ka dhimato. Gabadhaani waxa ay soo degtay guri cusub, waa ayna ka heshay. Waxa ay fariisatay dhulka, waxa ayna iska qaaday sawir. Kadibna waxa ay dhigtay baraheeda bulshada. Iyadoo keligeeda isla hadlaysa, waxa ay dareentay in muraayadda laga soo fiirinayo isla ayadii. Waxay si tartiib ah u fiirisay muraayaddii, laakiinse waxay aragtay in ay iyada la ay tahay, ayna wax walbana ay caadi yihiin. Xoogoo waxa ay fiirinaysay Instagram-keeda, ay sawirada ay soo dhigtay. Sidii iyadoo moobilkeeda u fiirinaysay, waxaa xumaatay korontadii, waxaana gashay cabsi yar. Waxay fiirisay muraayaddii, waxayna ka dhex aragtay isla ayadii oo dhanka albaabka taagan. Markii ay dhanka albaabka ay fiirisana, waa ay weysay. Waxay aaday dhanka iyo albaabka iyadoo cabsanaysa. Waxa ay rabtay in ay soo hubiso waxaani oo ayada u eg. Waxay hore u soo gashay qol ka mid ah. Waxa ayna rabtay inay hubiso. Waxa ay daartay leerkii. Waxa ayna fiirisay hareerihii. Darbiga waxaa ku dhignaa muraayad aad u weyn. Waxay isku dayday in ay fiiqdo muraayadda bacda ku dheggan si ay u fiiriso. Markii ay fiiqday, waxa ay ka dhex aragtay gabar iyada u eg oo weliba u dhoola cadaynaysa. Waxa ay tiri, maxaad iga rabtaa? Waxa ayna tiri, adiga ayaan ku rabaa. Waxaa xumaatay korontadii. Midii muraayadda ku jirtay waxa ay samaysay in ay gabadhii ay soo dhex gelisay muraayaddii, ayadana ay tagtay bannaanka. Iyadoo u qaylinaysa oo leh, fadlan meeshan ha igu xirin, isii daa, ayay waxay ku xirtay muraayaddii, waxayna oogu tagtay meeshii. Gabadhaani waxa ay ka soo kacday hurdada, waxayna u soo kacday in ay tukato salaada subax. Waxay soo aaday dhanka iyo musqusha si ay u soo weyse qaadato. Markii ay soo bogtay weysadeeda, waxay soo aaday dhanka iyo muraayad si ay isku fiiriso. Laakiinse muraayadda waxay ka dhex aragtay qof inuu gadaasheeda marayo oo kaleeto. Waxa ay fiirisay qolalka, laakiinse cidna waa ay ka weysay. Kadibna waxay isku diyaarisay in ay salaadeeda tukato. Waxa ayna soo baxsatay salligeeda. Kadibna waxa ay xiratay salaadeeda. Markaani waxa ay dareentay in salaada qof uu la tukanayo. Waxa ayna gadaal ay ka maqlaysay, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waxaa sidii salaada oo la tukanayay qoftii gadaasheeda fadhisay ee ruuxaanta ahayd. Markii ay salaamo naqsanaysay, waxa ay dareentay sidoo kaleeta in laga daba dhahayo, Assalaamu calaykum waraxmatullah. dhinaca kale markay u jeesatay, cidna waa ay weysay. Kadibna waxa ay mooday in uu qof uu ku ciyaarayo. Waxa ay gargaraacaysay qolalka kaleed ka soo horjeeda iyadoo moodaysa in ay ayaga ay ku ciyaarayeen.
laakiinse waxay dareentay in ay hurdayaan. kadibna waxa ay ku soo laabatay qolkeeda. markaana waxa ay dareentay in ay wax badan ay qaldan yihiin, ayna qolka keligeeda ay joogto. mar kaleeto waxa ay hubsay bannaanka inay cid joogto, laakiinse markii ay soo jeesatay waxa ay la kulantay السلام عليكم.